سميستان إذا لم تكن فهمتي كان حل وضدك سلوية ما تاس فراق وشيء جواب تاس وهم كوري هدي اللي هو حل طوبه أما وحقort حل قبته بدل يقتر بدل باكي إيمانيس في النادي اللي هاي في الناكي إيمانيس وكوشة هي في الناكي إيمانيس ما كأنت في النيمان هاي وحا كفي عن أو كخير بدل وحي إلا كفي بصره إلا تدقه إلا تربصه إن دولة معمول دولة كلمة ونص واسمها هي ولاميس أمنية لاميس مساعدة هنا كلها وحي أولا أي هول جريان إلا نسوقه مكة في الصلاة يسوق وهذا كان كأي توجي مكة وحنا رأينا أقول بحال كله فارق وحال جبته لماذا دراع عرفتي لك طبعا مكة ولا سوقه حال كلام بتشيله وبرشيد اللغة جميلة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مهم بشرنا وما صنعي محمد علينا إذا عدل أو برنامج كان نحوي مرة بين وقبصان وهذا قواطي أو أنا ركض إذا عدل الرياضة فيها لا وأنا أوضاع أطبعها وأتيان ألف وأطبعها إذا محمد أنا داعي وصول ويديا waxaan kaloo u mahadcelinayaa kasoo qaybgalayaasha dhammaantood waxaan ka cudurdaaranayaa dad fara badan oo arrintan xigmad fara badanna ka haya kasoo qaybgalayaasha kamida waa joogan waxaa codsanaya horta horumar dhinaca laftigooda wax laga siiyo participationka taas waa xagga farsamada su-aashaada ah intaan u gelin marka koowaad su-aasha ah xalka loo gudbi karaa waxaan leeyahay haa xalka waa loo gudbi karaa laakiin أنت سوي كور مرة waxaan madaxweynaha ay ka mid yihiin cabdinaasir iyo bashiir inay ka dhawaajiyeen nidaamkan in uu yahay nidaam deegaan waa sax markasta deegaan uu yahay laakiin markii la yidhaahdo dadka mataqaanaa beesha meeshaas degan laftigooda beesha meelka laga soo dhawoolgalin maayo laga keeni maaye beesha meesha deganayda wey waa in marka horta aan la oran deegaan haa deegaan waay laakiin dadka meeshaas laftigooda deegaanka marba waa xuseeya marka aqriso habraacyada soo raacsan walaalkay cabdinaasir suu sheegaya marka watoojir meel walba u kala soo raacay ahaa systemka dhisan nidaamkaa la soo raacayaa hay'adda SSF iyo beesha caalamka way keeneen oo degmooyinka waxaa loo sameeyey heerarka tusaale ahaan heerka degmada A oo kale usumareeb oo kale waa ana mataqaano dowlad ahaan 27 xubnood bay leedahay degmada caalamka oo kale waa B 27 xubnood bay leedahay sharciga golaha deegaanka marka koowaad oo la axsiyo oo baarlamaanka federaalka ay ansixiyaan waxay ahayd Julaay 2013 sharcigaas waxaa ku xusan qodobkiisa 6 faqradiisa A waxaa ku xusan oo mataqaanaa kuxusan in loo soo furayo mataqaanaa xubnaha golaha deegaanka habraaca ay leedahay ama habqaybsiga ay leedahay beeshaas sidoo kale sharciga golaha deegaanka ay ansixiyeen baarlamaanka galmudug isla markaasna uu saxeeyay madaxweyne xaafid Diseembar 2013 asna waxaa ku xusan golaha qodobkiisa 9 waxaa ku xusan macnaha xubnaha golaha deegaanka waxaa lagu soo xusayaa habqaybsiga ay heshiis ku yihiin ay leeyihiin beeshaas yacni waa habqaybsi jiray isla markaasna heshiis ay ku yihiin waxaan ognahay habqaybsigan afrawaxoodka waxaa lagu lahaa heshiis baa lagu ahaa isla markaasna macnaha wax la diidan yahay bay noqdeen dadka la maamul hada isla hadda heshiis weli waa lagu yahay su-aasha aan u galo marka intaan su-aasha u galina arrintan ku saabsan ay dhaheen waalehe deegaanka waa wada joognaa salaad hada tukada loo kala hari waa waxaan horta alxamdulilah rabbil caalamiin aan ka waafaqsanahay maamulka in la dhiso kow sidee loo dhisayaa waa farsamo marka farsamadii waxaa loo gudbi karaa hab cilmiyeysan ayadoo la kaashanayo systemka dowladda markaas jira iyo waxaa la yidhahdaa dadka stakeholderska waxaa la yidhahdaa dadka bulshada ama CBOs community based organizations waxyaalaha la yidhaahdo ama maxaan ku idhaahdaa mataqaanaa golaha guurtida ama xildhibaanada federaalka ama xildhibaanada stateka dhammaantood
arrintaana waxay ku leeyihiin door sidaad ogtihiinna arrinta xildhibaanada dhammaantood arrintan way ka midaysayihiin in loo dhiso habkan asaga waxaa kuu soo haray qataraha ay leedahay walaalaheen afar kuma balaarinayaan laakiin deegaanka ay sheegayaan waxa weeye guritiris bay yidhaahdeen guritirisku marka muxuu yahay muxuu weakness oo ciladaha leeyahay maxaa loo samayn karin sheekh limaan soo hadday sheegay wuxuu kuma diyaarsan sidee baan ugu diyaarsanayn kow hay'adda barnaamijkan keentay oo asasa oo uma soo talagalay fan la yidhaahdo guryaha lagu tiriyo sababta maxaa yeelay marka la samaynayo population census ama telecom la samaynayo waxaa loo baahan yahay waa waqtiga xataa Soomaaliya aan samayn karin meel la sameeyay ma jirto haddiiba taa la samayn karo telecom samayn karana waxaa loo gudbilahaa one man one vote iyo nidaamka xisbiyada loo gudbilahaayo Soomaaliya saas isku dooran lahaa kow arrinta waxa waaye dadku ma aha register garaysnaa oo maamulkii hadda deegaanka nominatorka hadda register gareeyay oo ma aha oo dad codbixiyaal register garaysay ma jiro guryaha tirsantoona arrinta saddexaad waxa waaye haddii hadda yaa hala telecom cid noo telecomeyso aan ku kalsoonaan karno maanta ma jirto sababtoo ah beel walba waxay aaminsan tahay midda ayaga ugu badan inay tahay deegaanka sida daraaddeed dhaatada soo baxda markii la midaan 200 beel midaan 300 beel leedahay waxa waaye khilaafka ka yimaadaan baladoweyn karinba waxaa dhici karta guri ay leeyihiin 3 qof oo walaala anigu waan arkay 3-5 qof oo walaala isku hooyo ah guri ay leeyihiin baa jira oo 3 bilood 4 bilood kasoo kala jeeda dadka ayaga marka yaa khilaafaadka gurigaas ku yimaada iyo waxyaabaha ka soo laabanaya bakaashooska waxa la xalin karo ama hadda loo talagalay maaha inta markaan ka gudbo arrinta kale loo gudbi karaa waa darbeerahan iyo dadka waa la kala xuso sida hadda la sheegayo nidaamka afroxoodka ahaa laakiin xal baa lagu dara tusaale ahaan waxaa la yidhi beeraha qaarkood xubnaha lagu daro waxyaabaha afroxoodku wax khayr u leeyahay aniga weli ima muuqan siyaasadaha iyo nidaamkan kalena waa la iga dheereeyaa laakiin in odaya oo wax qaybta iyo danta mareexaan ama Soomaaliyeed u qumaanahay waxaa imaanaysaa nin tegay inuu sida ninkaas oo kaleeto xisaabta ku qaato waxa la yiraahdo afar waaxood nin yimidna ama dib dhashay inuu ku waayo waxa ninkaas qaatay oo sida waagaan ay 85tii oo aan goobjoog u ahayn inuu ninkii xaq lahaana wax ku waayo kii kalena uu saas wax ku helo waxa weeye dadku dad walaalo weeye dad islaama weeye dad badan weeye xilliga heerka la sameeyay abdu ma dhisnayn balan ma dhisnayn dadku samaree baba laga yaabaa inay dhisnayn cadaada ma dhisnayn xilliga ayada ah deegaanka dad guurtaha deganaa oo qolo dhacdo oo dabeecad u leh inay isriixaan xadaarad baa la gaaray waa la wada degay dadaan afar waxoodka ku jirin baa carrada aad u degay dad afar waxoodka ku jiray baa meesha ka baxay laga yaabo inay ku doonayaan afar waxoodnimada inay wax ku helaan dad baa soo degay aan hore u deganay waxay aniga ila tahay sida markii horeba aan sheegay dadka asaga ah deegaanka ay degan yihiin iyo awoodooda in wax loogu qaybsho iyo sida ay u degan yihiin nin walba nasiibkiisa iyo calafkiisa inuu ku qaato waxaan la leeyahay macnaha dawladda dhan baa ku dhisan meel hadda daawo fiican oo kaga jiro lama arko waa waxaan weli saldhigan annaguna ma rabno waxaan nacfi lahayn maalin walba inaanu ku doodno haddii markaa ay imaanayso aqoon in la fiirinayo cod badni iyo doorasho inay noqonayso nin diidan sida walaalkay Faarax u sheegay in wax la dhiso ma jiro waxaan u malaynayaa kulligana waa wada rabnaa waxa la yiri maamul xun 6 sano meel ka taliyo 6 saac ama 6 maalmood oo maamul la'aan haba xumaado maamulkaasi ayaa ka qayro dad maamul yaa ka daran taas maamulkaas 6 bilood shaqeeyay ama 6 maalmood shaqeeyay baa 6 sano 60 sano ninka shaqeynayo jawr jaarka ka fiican annagu maamul waa rabnaa annagu horumar waa rabnaa annagu kala dambeyn waa rabnaa waxa la isku khilaafsan si lagu dhisay soo lagu dhisaa tanna way ku noqon kartaa waxa way dadku gurihiisa wada tirsan yihiin dadka biyo gelinta guryaha wada yaqaana ma garatay waxa sahlan weeye
walba dadku darsan karno sidaasaan anigu arkaa ma rabno inaanu kala gadanno wixii macnaha inaanu kala gadanno ma rabno intiinaan halkaa fadhida horta waxaad matalaysaan waa bulshadii qolo diidan ma jirto in maamul la sameeyo ama golo deegaan la sameeyo marka waxaa u gudbaynaa bal xalku siduu yahay maadaama idinku fikrad wataan iyaguna fikir ay wataan qaybihii bulshadan aad ka socotaan waxaan rabnaa inaan u gudubno xalka ugu dambaysta ah waxa uu yahay iyo sida lagu heli karo wax fiican oo dadku ay ku qanacsan yihiin waxaan rabaa inaan sii ka bilaabo bashiir barculo maxaad isdhihi karta xalku waa ku jira بسم الله الرحمن الرحيم نيل أورنجري نبضان هو دنتي ولا أورنجري فارح نور حوبي يا مركو هذا الكفر فرنا يوحدي يشري إلى وهنا هبابين إلى وهي هبابين وحان رباه إن شغنه وحلك الوهي الكره وعهد التاجر وأفر واحد أو محكوم السنة حل جميل هيو خطر أرينها كتاجر عابدوا أرين التاجر وحوي ninkayga nabadoonka ah bashiir way laakiin afar waaxood iyo deegaan halkii waxa weeye arintan in la sameeyo beelaha degan oo sade inay isugu cayilgeliyaan arintan in laga dhaadhiciyo inay meel ku soo wada saleeyaan inaan ruux la qadin ruuxuna una dhergin ruuxa u qalme xilka qaadi kara in loo qaayo أنا وحكومها ينله يا أنا وحسمينها يا إن بناك كسر شينو إن لك جوه ورقدها السمية والشيخ ليبان وحكا السمية سيد كان شيخ ليبان كوجا ومدح يجوها هو بالأسرع كهلا ينقارك مكروفن وأرين قطر تدلو وحن كل حركة هذا أسف لليه هي أسرع أو كل حشرة أنا وحن كتشعلا وأن كفر أحسن مثلا إن كقاطع الدنيا إلهي واسية وحكم رقضه لكن إنه هياتكم المرة اللي كمان هاي أصلا يكوه بواحد إلى إمام البان سبعين بشير مرعون والله قدين هاي أو لو حبل قوي الدين ماي بناك أخو شينو مرعان أنا كمان أنت كلا بناك يجدا بناك وحنا الله صاروا مركل سوشيو مرعان صوح التمام هدو أفر واحد كل شيء أنا وحفا حضو عكو بستو هدو الدقان كل سنة عكو بستو هل عليا برابك هل توشيو وبراغ ارترتي السنة وحقرية مقرنا هيو واقع حلقة وحاضرة يدا هالكوي وحقرية يليبان يكوح ديس مقرنا يو وسير هذا حسانة بالله بالله قاضي وحكو دقان معقان قفه الضوء شغديسا بريحان برابنا لقدو عيسى عيسى قولي وكلوية مدام ninkan ciise qoolay ka rabin oo mareexaan waxaan ha iska dhigo intaasan oranaya xalkii waa asaas waa baasanta waxaad xal biday in dib la isugu laabto oo beelaha ay soo heshiyaan leedii heshiyo bulshadu labada bulshadu waa fikir way yeelan kartaa laakiin horta xal ah u gudubno okay sheekh liban xalki bas xal ba ku jirnaa sheekh liban haye muxuu yahay xalka dadka deegaanka maadaama bulshada aad matalaysaan afar waaxood iyo deegaan la iskaga soo horjeedo xalka ugu dambeeya الرحمن الرحيم horta anu qofna ataagi maayo shakhsina ataagi maayo jamaacana ataagi maayo waa kala fikrad duwanna fikrad kala duwanaashuna waa shay sunno ah oo dabiici ah oo ilaahay quraankiisa ku sheegay walaa yazaaluuna mukhtalifiina baa ilaahay yiri dadkuna iskhilaafayaan kama zuulayaan oo aragtida ilaahay baaba qiraya adoomada abuuray haddii aan u soo laabto xalka horta haddii la yiraahdo golo deegaan hal la sameeyo waxaa nicmo ah inay walaalahana leeyihiin waa rabnaa in la sameeyo laakiin waxaan aaminsanahay inaysan rabin maxaa yeelay qofku shayga hadduu caqabad ku gaafo ku wareejiyo shayga ma rabo wey macnaheedu waxaa taa daliil u ah shay haddii la rabo afar waaxood hadda annagu xaq weeye ma lihin laakiin shay taagan shay laguma dul baabi'iyo waxay mudnaanta iyo saxdu tahay magaaladu rafaad badan bay soo martay rafaadkaas waxay ka baxday intii madaxweynuhu noo yimid madaxweynaha laftigiisa wakhtigiisa waa gabagabo inuu soo laabanayo ilaahay baa ku cilmi leh inaan ka faa'iidaysanno oo golaha iyaga deegaanka samaysanno oo dowladdaas aan ku macaashno baa horta caqligu tilmaamaya haddii aan isku diidno oo qola maanta mada tiraahdo birina qolada kale mada way oran kartaa macnaheedu marka wuxuu noqonayaa wixii yimaadaba qolaba maalin inay dacalka ku dhegto isla daataan
waxaan markaan xalka u arkaa maraxaan dadka deegaankan degan islaamka kale markii laga reebo waxaa la yiraahdaa waa 38 qolo oo mag bixisa 38daas si kastoo loo qaybiyo lagama yaabo 21 ku filnaato wada shayga la qaybinayo shayga loo qaybinayo waa kala badan yihiin dadka kale oo deegaanka nala degan 20 qolo kama yara ama hareeraha deganaadeen ama gudaha magaalada ku jireen haddii xataa aan isku waafaqno dadka in loo qaybiyo marnaba dadku iskama wada arki karo 21kan beelaha waaweyn haddii loo yimaado waxaa laga yaabaa beel weyn oo 20 meelood wax u qaybsataa 2 qof inay ku matasho macnaheedu waxay noqonaysaa 2 beelood inay oo beesha ka mid gasho 18 kalena banaanka ay ka joogto qaybta keenaysa marka annaga xilnimo deeqo adeeg dawliyahana deeqa kelmadda in dadku aad u dhuuxa fiican lagama yaabo 21 inaan iska wada aragno lagama yaabo inaan ku wada fariisano ninkii ku fariista mushaari weeye annagu noo shaqeynaya waa khaadim cidda u shaqeynaya waa inaga walaalkii cala soo hada sheegay 21 wada isku beel noqdaan sharciga islaamka sidoo qabo weeye waad ogtihiin qarnigii 32 sano oo dawladii nabiga iyo khulafadu jirtay alayhi salaatu wasalaam shanta qof oo madaxda ka noqotay muhaajiriin bay ahaayeen caasimadda islaamka ku xukumayna madiina ay ahayd waa dadkay u soo haajireen oo qaxootiga u ahaayeen islaamku ma qoro waxa la yiraahdo reer deegaankan dadka xaq u leh wax xukumaan islaamku waa siman laakiin taa ma gaarin aqoontayada iyo bisaylkayagu sidoo kale ma gaarin inaan cod wax ku dooranno inaan marka maalinba ilmuhu markuu dhasho maraaxil buu maraa horay kama boodo marka waan gaari doonaa inaan cod isku dooranno inaan xisbi isku dooranno in qofka badani qofku rabo doorto waa gaari doonaa laakiin hadda kuma boodi karno wacyiga laakiin hal haddii la isku yimaado dadka beeluhu dibta isugu laabtaan meesha ugu dambaysa oo halka laga raadin kara bulshada maadaama bulshadii ay u baahan tahay idinkana aad isla waafaqsantihiin in arrintan ay tahay arrin loo baahan yahay miyaa la isdhihi kara dib inta la isugu laabto waxa dadkaasi dadka deegaanka u ah indhaha ay keenaan aqoonyahan dhalinyaro bulsho haween inta la isku yimaado qolo walba laga soo xulo wixii ay soo go'aamiyaan ha lagu shaqeeyo xalka horta wuxuu noqon karaa in la isku tanaasulo dadkii hadda wuxuu u qaybsan yahay qolo leh golaha deegaanka sidii ku suuroobi kara lagu dhiso iyo qolo leh maya sida ugu adag ha lagu dhiso haddii la yiraahdo dadkan ha la faaqido ha la findhicilo oo deegaan ha laga dhigo oo guryaha la tiriyo oo wax laga bixi kara ma aha hatta 10 sano laga ma bixi karo maxaa yeelay hadda doorashada 2020 ka ah caqabaadka hortaaga waxa kamid ah dadka codayn laha ma diiwaan gashana ma tira koobna dhaqaale lagu tira kooba lama hayo sida walaalkay u sheegay Faarax caqabadaas beeshay taala yaa dhaqaale ku bixiraya tira koobka ilaa marka ugu yaraato 500 qof oo magaalada tira koobaysa yaa waxa la yiraahdo lagu kalsoonaan karaa ma China dadka keenayna ilaa tiimkii la sameeyay waxa la yahay reerkiisa u rooyay kun reerkii la yiraahdo guri walaada ma laban leen uu leeyahay kun marka adu halka waxa aragtaa in la isku talaasulo halka waxaan u arkaa saaxiibada iyaga taalanay ka fuqaan barnaamij waa gatay asiyo ka asiyo Cabdirsaaq asiyo halka ugu dambeeya waa ku siinaya maxaad xal u aragtaa horta waxaan la yiraahdo qof walba qof kale inuu isaga ku taagan ka dhama aha horta waxaan ka cudur daarinayno qof walba inuu yiraahdo hebel baa ka dhama aha saasuna leeyahay horta waxaan ka cudur daarinayno waxaana jirta waa la istuhumayaa dad gaar ah oo ama maamul meel ka yimid ah ama odayaal ayaga la shaqeynaya ama dad yar yar urursadeena waa horta caqabadan iska leh sida iyagu rabeen wax ku wadeen waxaan uga digayaa inaysan fidno horseedin hadda waxa weeye dhibaato kala dhacday maylaka halka raadinayna halku waxa weeye walaalkay wuxuu yahay la isu tanaasulo waa sax in la isu tanaasula waa fiican tahay laakiin tanaasuleen haddaan tanaasul jirin anagu oran mayno ayaga khaldan ma ogola malihin waxa halka loo raadinayaa waa adigu tanaasul ma garatay laakiin arrintaan sidii Faarax Bashiir sheegay waxay ku fiicnayd markii hore waji sax in loo maro waxa la yiri
البقرة بالك اللي ألف كقلوعة ألف كقلوعة قرآنك البقرة كم توسلي مركو ورا قرآنك ألف كهبا البقرة كم توسلي مركو ورا تروح على قبل المال خيانة كتشوتو ضدك خيانة وضنا حتى كمان أحبهن مركو روح على وجهنا كسديو بالك اللي وابن يعني قال ضيعنا قبل كتش قبل قال هل يراه أرص بعد قبل قال تري هاشا أرص اللي يراه وحنا هاشا أرص أكيد حنش اللي عن اللي جوه على ما بدأ قضيه هالكي على ما بدأ قضيه هالكي عوز كلا هاي وصار كفي على مركونه وعلى اللي يراه أيوة عشان تجارين بيسوء العلية الرجوس كل جوا بيعرفون بدري عروضة يناقي لها كم عد يستاء الرجال رجل ودري بيكعبنا يساه مركب معهن على الرجل وتجيب عيب الصوق ذي وما ذيك إلى لي عرقاته لمن waxaa jira niman shaqaysta jirey magacan baareeya horta waxaan leeyahay meelaha aanu ka cabanayno ragii noo galay baa hawshaan wada cabashadiibana waxay rabaan marka hashu hal hore maaha waa mid aan hadda taagan oo dantana haysan wey soo ma aan garan marka maxaad xal haddii ayagu ka dhex baxaan marka hore qalocatay haddii ayagu ka dhex baxaan oo la isula soo noqdo oo dadka hameenkii loo yeerayo laga daayo oo dadkan matalaale laga daayo hadda walaalkay bahalka la yiraahdo ninka la yiraahdo liibaan sheekh liibaan xabad baan la siiyay siyaadaha asagoo laana dhigay kaga dhageystay soo ma garan wuxuu kaba tagana qabyaalad kaba tagana ma garatay xabad siyaada la siiyay reer gudoomiyuu leeyahay reer ku xigeen ku leeyahay xabad siyaada reer la siiyay waa waxaan ku dhabo Soomaali waa meeradeedii baa laakiin dadku waxay ku jirtaa inta isgaranno sida aan ku sheegayo nin maqan inuu soo ku xisaabtamo meel uu ka maqan yahay inuu soo ku xisaabtamo in marka inta dhulka la soo dhigo oo la tashado oo la isdhaarsado oo dib loo dhigo waanu wada doonaynaa lillahi ahaan waa wada doonaynaa sida ay ku habboon tahay la isla raaco ninana u soo aanaa fiican iyo anaa fiican hasa xalka waa aad u maasan tahay cadaas ku soo laabanaya aan siiyo markan calas xalka ugu dambeeya muxuu yahay isdhihi kartaa bulshadu waxay heli kartaa maamul caafimaad qaba oo lagu isku raacsan yahay adigoo labada dhinac midna ka fiirinayn bismillaahir rahmaanir rahiim xalka waxaan u arkaa horta waxaan leenahay haddaan nahay degmada Caawad Waaq odayaal gurti oo matala degmadan iyo dadka jooga oo ilaa heer federaal oo madaxweynaha xitaa uu ku ogyahay waxaan anigu xal u arkaa marka in ayaga sida aan talada ugu dhiibanay oo markii hore la yiri dadkan wixii arintooda wixii ka soo talin lahaa hal la soo xiro beel kasta waa soo xushay meel baa la fariisiyay ilaa federaal baa ku og annaga shacbiyadaha ku og qabiilka deegaankan degan oo hadda sida la yiraahdo ayay matalahayaan ugaaskoodii baa dhex fadhiya oo arintalada ugu dambeeyaan ugaaskoodii baa dhex fadhiya waxaan xalka u arkaa in ayaga talada lagu celiyo go'aankooda meesha uu raacana ee arintaasu noqoto qof walbana uu ku qanco odayaasha deegaanka oo matalahaya deegaankan inuu qof walba ku qalo xalka kaas aan u arkaa aan ku jiidiyo gacmadaals waxa kale leeyihiin laakiin in lagu cesho madaxa u sareeya oo deegaankan matalahaya in arintaa lagu cesho ayaa